السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادن سلامي إلهي وحان كجرجينيا عمر دير عبادة دميستيران iyo caafimaad dhan meel kastoo joogtaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادن سلامي إلهي وحان كجرجينيا عمر دير عبادة دميستيران iyo caafimaad dhan meel kastoo joogtaan. kusoo dhawaada channelkas anfac adinku aad u mahadsan. maanta waxaan jeclaystay inaan idila wadaago sheeko ku saabsan laba wiil oo saaxiibo ahaa ee soo wada safray badda soo galay. labada wiil oo saaxiibada ahaa marka wuxuu ahaa midna caato midna wuu cayilnaa. labadan wiil ilaa ay xasuustaan noloshooda saaxiibo ayay ahaayeen, ayagoo aad u yaryar ayay saaxiibo noqdeen. labadan wiil marka waxay soo tahriibeen badda soo galeen. labada wiil marka maxay ahayd mid kamid ah wuxuu dhahay badii doontii ayaa gadoontay. mid kamid ah marka wuxuu dhahay aan dabaalano. marka midaa dabaasha aad u yaqaanay, midna wax yar un buu yaqaanay. marka kan buuran uu ahaa kan dabaasha si fiican u yaqaano, kan caatada ahna wax yar un buu yaqaanay. marka mar walba wuxuu dhihi jiray weligaa ha isdhiibin. wiilka caatada ah ayaa mar walba wuxuu dhihi jiray kan kale weligaa dhibaato kasta iyo wax kasta kusoo maro weligaa ha isdhiibin. mar walba ma aragtay ahow qof ma aragtay ilaahay ku xiran ha isdhiibin. inta awoodaada aqligaaga khibradaada ahna siibad waxa wadi kartid. see marka u dabaalanayeen isku garab dabaalanayeen ayaa milkii weynaa buurnaa wuxuu dhahay niyahow aniga waa daalay, mana sii wadi karo, mana u maleynaa inaan badbaadeyno, waxaan arkayaa inaan dhiman doono. marka maba dareensaniba micnaha u sii dabaalanayno. waxa ka fiican in anagu isdaalinin hadda isdhiibno si ay nafta si sahlan nooga baxdo anagoo daalaneen. kii kale wuxuu dhahay niyahow iska dabaala, iska wad, iska soco, laga yaabo daqiiqada xigto inuu ilaahay qof noo soo diro. kii kale ayaa wuxuu dhahay waa isku dayay. markuu dhowr mar dhiirigeliyay, dhowr mar ruuxay, markii dambe kii dambe wuxuu dhahay niyahow aniga waa isdhiibay, waanan kaa tagaya, waa ka xumahay, waa sii dayn, ma isku dayaa inaad dabaasho. bas nasiib daro kii marka meeshii ayuu isku dhiibay oo ma aragtay badii ayuu dabaashi ayuu joojiyay. markaasna hoos ayuu sink garay, hoos u fariistay. marka sidii ayuu naftiisa ku waayay. kii kale marka si u dabaalanayay daqiiqado yar kadib waxaa meeshii soo maray doon iyo maraakiib badan. markaas u daba socdaan, markaasay arkeen qofkan ma aragtay ma dabaalanaya. markaasaa wiilkii raa la soo badbaadiyay. wiilka markaasoo aad iyo aad uga niyad xun, aad iyo aad uga xun saaxiibkiisii dhintay oo walaalkiisa oo kale ahaa, ayuu marka ma aragtay sheekadii dad badan la wadaagay. markaas wuxuu dhahay mar walba waxaan dhihi jiray hooyadaya mar walba waxay dhihi jirto xaalad kasta iyo dhib kasta ku jirtid weligaa ha isdhiibin. adigun ilaa adiga ma aragtay markaad isdhiibtid maalintaas ayaa dhimanaysaa. waxaa dhimatay maalintaad isdhiibtid. weligaa ha isdhiibin dhib kastood ku jirtid. marka maanta waxa ka faa'iideena ama naga anfacaysa sheekadan waxay tahay, sheekadan waxay naga anfacaysa waxa weeye kow sida ognahay banaka dad muslimaanahay mar walba ina rajo beelna ma ahan, marna ina isdhiibna ma ahan. mar walba hadaa rajadaada weynaysatid aadna isdhiibin, mar walbana ogow waxay nafta ka baxday markaad isdhiibtid. sababtoo ah hadaa adig mar walba isku dayday intii tabartaada iyo awoodaada iyo tamartaada ay tahay ilaahayna isku xirtid, insha Allah waad guuleysanaysaa. marka intaas rabina idin la wadaaga maanta. weligaa ha isdhiibin. qabad kasto ku jirtid, dhibaato kasto ku jirtid, duceyso, dadaal, waad gaari doontaa hadii eebaha awood la idmo. hadaa adiga ma aragtay ilaahay kugu talagalo waa heli doontaa. marka iska dadaal oo niyadana dhiso, hana isdhiibin weligaa. ilaahay ku dhiirano, ilaahay u duceysa mar walbo. markastana dadaalka iyo ducada ha kala reebin. waa intaas insha Allah inoo maanta waa mar dambe xiiso leh insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.